sharciga la dagaalanka argagixisada. Ka hor haddii codka la dhegeysto markii aad telefoon ku hadlayso, dhaqdhaqaaqaagana lala socdo oo aysan jirin wax sir ah oo aad gaar u leedahay, iyadoo loo sabaynayo in amniga dalku ka muhiimsan yahay xusuusiyaadkaaga oo privacy-gaaga. Sharcigan ayaa ogolaanaya in xog kasta oo gaar loo leeyahay la ogaan karo xilli kasta iyo goor walba. Soomaaliya waxay dhibano u ahayd fal argagixiso 15 sano ee la soo dhaafay. waxaa ku waxyeeloobay kumanaan shacab ah waxaana ku basbeelay hanti aan tirsi lahayn. muddadaas ma jirin wax sharci ah oo wax ka qabta argagixisada. xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay dhawaan meel marisay sharciga la dagaalanka argagixisada oo in ka badan 6 sano soo jiitamayay. Sharcigan ayaa loo arkaa inuu muhiim u yahay dagaalka ay dowladdu hurmud ka tahay ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab. sharciga la dagaalanka argagixisada wuxuu ka kooban yahay 17 cutub iyo 59 qodob. sharciga qodobka 12 wuxuu sheegayaa in qofkii xaysiiya afkaar, urur ama koox argagixiso ah lagu ciqaabayo xabsi u dhexeeya 3 bilood ilaa 4 sano. qodobka 11 ee sharciga wuxuu xusayaa iskaashiga caalamiga ah ee arrimaha dambiyada argagixisada la xiriira, taas oo dad badan ku fasireen in Soomaaliya macluumaad sirdoon oo la xiriira arrimaha dambiyada argagixisada la wadaagayso dal aan magacooda lagu xusin sharcigan. sidoo kale sida ku xusan qodobada sharcigan, fal kasta oo argagixiso oo ay dhimasho ka dhalato waxay ciqaabtiisu noqonaysaa dil toogasho ah, halka faldambiyeedkii ay ka dhalato waxyeello jireed ama hantiyadeed ay ciqaabtiisu noqonayso xabsi daa'in 15 sano ilaa 20 sano. haddaba muwaadin, sidoo aragtaa sharcigan? Nakala wadaag aragtida qaybta hoose ee comment.